min karo. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu ka guuray guri uu ka deganaa magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Aadan ayaa si rasmi ah waxa uu uga guuray guri uu ka deganaa magaalada Muqdisho. Sigaasigan ayaa waxaa la sheegayaa in uu fadhiisin ka dhigtay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa qeexaya in uu ka war helay qorshe culus oo ay u maleegtay xukuumadda nabad iyo nolol. Macluumaadka ayaa waxay daboolka ka qaadayaan in qorshahaasi ay tahay mid halis ku ah noloshiisa. Shariif oo dagaal adag la galay dowladda Farmaajo ayaa waxaa dhawaan loo doortay gudoomiye ku-xigeenka madasha xisbiga qaran. Madashaas oo mucaarad ah ayaa waxaa ku midoobay in ka badan 6 xisbi kuwaas oo cadaadinaya dowladda Farmaajo.